بسم الله الرحمن الرحيم ولدي سلامي دمان قيرت ku xiran channelka soo dhawaada casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay clearance sacrifice maxaa la dhahaa goorma la isticmaalaa maxaa faa'iido oo ay leedahay clearance sacrifice horta marar qaarkood marka ciyaarta dheelayno waxaana soo marto position ay taalo xubinteena meel balse aan ka jeclaan lahayn xubin kale oo aan anaga leenahay inay taalo taasoo sameynayso saameyn tusaale ahaan hadda meeshan queen e6 waxaa taalo e6 waxaa yaallo queenteena balse waxaan ka jeclaan lahayn in fardahan uu yaallo si uu u sameeyo fog sababtoo waa fog hadduu joogo positionkan haddii lagu bedelo hadda waxay noqon lahayd check oo waxaan heli lahayn xubintan oo ah queenta so markan ayaa marka waxaa la sameeyaa clearance sacrifice marka waxaa weeye niyahu waddada ii banay si aan aniga shaqadiida u qabsado oo hadda haddii queenta meesha ay joogin maanta fardaha ayaa shaqadiisa qabsan lahaa so marka clearance sacrifice marka waxaa waaye waa inaad xubinta sacrifice ku samaysaa not inaad iskala dishid xubin saameyn leh inaad dishid ama force move oo kale keliyana ma ahan clearance sacrifice waxaa loo sameeyo in xubin lagu helaa sometimes xubintaada ayaa waxaa laga yaabaa inay checkmate ka hortaagan tahay ayadaa sacrifice ku samaynaysaa markaas ayaa waxaa la yidhahdaa clearance sacrifice so haddaan fardahan dilo waxaa qasab in laga falceliyo sababtoo ah qalcadan ayaa waxaan ku hayaa labo queentana dee dib uma noqon karto maybe inay tagto c8 then queenteeda ayaan la baxayaa markaas so haddaan dilo hadduu askarigan ku dilo waa horta check so meesha marka aniga waxaan ku helayaa xubin qasab hadduu ku dilo qalcadiisana waxaan leeyahay knight e6 check so that's waxaan ku helaynaa marka xubin waa gartay example-ka labaad isku day in aad xaliso adigoo samaynaysid clearance sacrifice intee baad jeclaan lahayd xubintaada inay joogto taasoo samaynayso macno runtii waxay isku yihiin midii hore so that's waxaan u malaynayaa inay ku muuqato isla fardihii laakiin clearance keliya looma sameeyo fardaha ee waa mar kasta aad doonaysid in xubintaada ay meel tagto taasoo saameyn ku leh balse xubin kale oo aad adiga leedahay ama askari adiga aad leedahay ay kaa hortaagan yihiin that's why ayaa loo sameeyaa clearance sacrifice so hadda waxaan sameynaynaa inaan askarigan sacrifice ku sameyno sababtoo ah mar allaala markuu fardaha meeshan tago wuxuu sameynayaa fog oo ah queentii iyo wuxuu isku hayaa qalcadan sababtoo ah qalcadan waa double attack waxaan ku hayaa queenta so waxaan ku heli doonaa meeshaas qalcad so waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid marka mar allaala markii disho maan lagu dili karin queentan so qalcadan ayaa waxaa noqonaysaa free so waxaan sameynaynaa sacrifice bishopka in lagu dilo qasab waaye then waxaan leeyahay fog waa gartay isku day positionkan inaad iyadana samaysid clearance sacrifice sidee baad ku samaynaysaa maxalisay ma isku dayday rook h7 check maxaan sameeyey fiiri clearance sababtoo ah haddii uu fardaha ku dilo iyo haddii uu boqor ku jiroba mar walbaba g7 waa checkmate waxaa meeshan ka leexiyey qalcaddii iga hortaagneed inaan shaqadeeda qabsan lahaa sidaas awgeed clearance sacrifice waxaa la yidhahdaa niyo waddada ii banay